Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawow daawade kanaalka Somali Inspiring oo aanu kusoo gudbino muuqaalo faa'iido u leh bulshada Soomaaliyeed. Haddii aanu guda galno muuqaalkeena maanta, waxa uu ku saabsan yahay qiso dhab ah oo ka dhacday waddanka Soomaaliya, taasoo gilgishay qulubta dadka Islaamka ah. Haddaba qisadu waxay ku bilaabmaysaa gabadhani waxay ahayd gabadh waalidkeed doonayeen inay u guuriyaan una raadiyaan sawj wanaagsan. Sidii ay taladu ahayd, waxaa la soo helay nin guursada gabadha una qalma gabadhaasi. Haddaba sidii dhaqanku ahaa, inanta iyo inanka intaa la isu meherin, waxaa laga dalbaday wiilka inuu gabadha fiiriyo lana sheekaysto si aan marka dambe isfahan waa iyo dhibaato kale uga dhicin meeshaasi. Qodobkani waa qodob ay diinteena Islaamku sharciyeysay, nabigeennuna sallallahu calayhi wasallam uu sheegay in qofka doonaya inuu guursado gabadha uu iska fiiriyo. Wiilkii iyo gabadhii daqiiqada kadib markii ay wada hadleen, waxaa dabadda u soo baxay wiilkii si degdeg ahna albaabka uga baxay isagoon qofna la hadlin. Arrintan ayaa noqotay mid fajac iyo amakaa ku noqotay dadkii joogay goobtaasi, balse qof waliba waxa uu niyadiisa isaga sheegay inay isfahmi waayeen labadan shaqsi. Waalidkii dhalay gabadha waxay isku dayeen inay ninkii la hadlaan si uu ugu sheego waxa ku dhacay, hase ahaatee wax jawaab ah lagama helin, sidii ayuuna ku tagay. Muddo kadib waxaa gabadhii soo doonay nin saddexaad. Sidii si la mid ah markii waxoogaa la sheekaystay gabadhii, waxa uu sameeyey sidii raggii hore sameeyeen, waxaana uu ka soo cararay gebi ahaanba gurigii inantaasi joogtay. Haddaba waalidkii waxaa soo wajahay murugo iyo qaadan waa iyo inay wax ka fahmi waayeen waxyaalaha meesha ka qaldan. Waalidkii waxay go'aan ku gaareen inay u tagaan sheekhii xaafadaasi, waxayna uga warrameen sidii wax u dhaceen. Sheekhii marka uu dhageystay sheekadii waalidka, waxa uu si fudud ugu sheegay duco yar oo haddii ay ku celceliyaan in Ilaahay dhibaatadaas ka dulqaadi doono. Ducadu waa dhowr kelmadood oo laga yaabo maalintii inaad dhowr jeer maqasho: laa xawla walaa quwwata illaa billaah. Adigu waxaad u fahmaysaa dikri ama duco yar oo fudud, balse waa duco aad u awood badan, waxayna macnaheedu tahay laa xaala illaa xaala. Xaalad ma jirto, Ilaahay xaalad kale ayuu ku bedelaa. Faqri ma jiro, Ilaahay waxa uu ku bedelaa hodan. Xaalad ciriiriya ma jirto, Ilaahay faraj ayuu kuu furaa. Ducada ayaa saas macnaheedu noqonayaa. Waalidkii waxay bilaabeen inay ku celceliyaan ducadii xilliga habeenka iyo salaad kastoo ay tukadaan. Waxayna sameeyeen qorshe ah in aabbuhu soo jeedo habeenka badhkiisa hore, hooyaduna soo jeedo habeenka qaybtiisa dambe, ayna ku celceliyaan ducadii. Haddaba habeenkaas waxaa dhacay arrin naxdin leh oo sababsatay in qisadani laga qoro. Aabbihii isagoo hurda, hooyadiina soo jeeda oo ducaynaysa, ayaa waxaa dhacday inuu odaygii riyada ku arko qof leh: Allah wuu idinka saaray dhibkii, gabadhaaduna way falan tahay, ee intaad qolkeeda gasho meeshaas hoosteeda ka soo saar warqadda falka. Odaygii intuu kor u soo booday ayuu si farxadi ka muuqato xaaskiisii ku yidhi, waan helay. Inta uu si degdega ku galay qolkii gabadha ayuu ka soo saaray waraaqdii meeshii. Waraaqdiina waa ay gubeen. Maalmo ka bacdi waxaa iska soo daba dhacay rag doonaya inay guursadaan gabadhii. Allahu akbar. Haddaba ujeedka qisada iyo waxa laga qaadanayo ayaa waxay tahay in xaalad kasta oo kugu timaada ay daboolayso baryada Alle subxaanahu wa tacaala iyo dikrigiisa. Nabiguna sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay: acjazu nnaasa man cajaza can idducaa, oo macnaheedu tahay dadka waxaa ugu caajisan qofka ka caajisa baryada Ilaahay iyo dikriga Ilaahay. Haddaba daawade, haddii aad nala soo gaadhay halkan, adigana Allah kaa badbaadiyo falalka, ha kaana xijaabo waxyaalaha kale ee la midka ah. Fadlan subscribe saar oo rukumo si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada aan halkan soo gelino. Siina share garee si ay uga faa'iidaystaan dad badan oo u baahan